waxaa jiray nin beeraley ah kaas oo lahaa hal ari cad iyo hal faras. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa xanuunsaday faraskii. Sidaa daraaddeed ninkii iska lahaa ayaa isla markiiba waxa uu wacay ninka veterinarianka ama xayawaanada daaweeya, dhakhtarka xayawaanada. Dhakhtarkii markuu imaaday wuxuu u sheegay in faraskiisa uu ku dhacay xanuunka fayraska, uuna u baahan yahay ilaa 3 maalin in loo soo noqdo si loo daaweeyo. Isla markiiba meesha waxaa ka dhowaa saaxiibkiisa oo ahaa ari cadka. Ari cadkii ayaa maqlayay waxa ay ku sheekaysanayeen dhakhtarka iyo ninka iska leh. Isla markii maalintii koowaad dhakhtarkii ayaa u imaaday uuna daaweeyay, wuxuu siiyey daawadii uuna ka tagay. Laakiin waxaa u soo laabtay saaxiibkiisa ari cadka ahaa oo u sheegay waxa uuna ku yiri, saaxiib is adkay, ha isdhiibin. Erayo badan oo dhiirigelin ah, saaxiib ha isdhiibin, waad fiicnaan doontaa, uu ku yiri. Sidaas daraaddeed dhakhtarkii ayaa maalintii labaad soo laabtay uuna daaweeyay, sidoo kale uuna ka tagay. Laakiin haddana sidoo kale saaxiibkiisii uu u soo laabtay waxa uuna ku yiri, istaag saaxiib, ha isdhiibin, haddii kale waad dhimanaysaa. Waxa uuna u tiriyay tiro sida 1, 2, 3. Maalintii saddexaad waxa uu soo laabtay dhakhtarkii, waxa uuna siiyey daawadii. Waxa uuna sheegay cudurkan inuu sii faafi doono, uu ku faafin karo xayawaanada kale, sidaas daraaddeed gooni laga dhigo. Waxa uu soo laabtay saaxiibkiisii wanaagsanaa. Waxa uuna yiri, saaxiib ii soo dhawow, waxaan kuu sheegayaa inaadan isdhiibin, istaagti aad tahay kan ugu wanaagsan, waxaana tahay kan championka ah. Waxa uuna u tiriyay tirooyin sida 1, 2, 3 camal. Saaxiibkiisii wuu istaagay uuna fiicnaaday faraskii. Sidaas daraaddeed ninkii lahaa ayaa ka arkay halkaas faraskiisii oo si fiican u ordaya. Ninkii lahaa ayaa saayid u farxay uuna boodbooday. Waxa uuna dhahay, maanta waa faraxsanahay, faraskaygii wuu fiicnaaday. Berrina waxaan dhigayaa xaflad aad u weyn, taas oo aan qali doono arigayga. Arigii maantoo dhan la soo maray dhibaatada saaxiibkiisa, kana dambeeyay inuu fiicnaado oo uu wanaagsanaado, kala aadkana u dhiirigelin jiray, ayaa maanta la dhahay waa la qalayaa. Halkaas ayay noogu eg tahay. Haddii aad u baahan tahay kuwan iyo kuwa kaloo xiiso badan, fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saartid YouTube-keena, aadna like saartid si aad noqotid daawadaha ugu horeeya ee waxaan soo dhigno. Sidoo kale waxaa la socon doonta sheekooyin aad iyo aad u wanaagsan oo noocyadan oo kale ah. Haddii aad u baahan tahay, fadlan saaxiib la saaxiib YouTube channel-keena, garaadkaaga kor u qaad.